13 geed ee ugu weyn dunida. Qaar ka mid ah geedaha dhulka ka baxa waa wax aan caadi ahayn. Maanta aan ku baro 13 geed ee ugu waaweyn adduunka, kuwaas oo qaar badan lagu yaqaano dhererkooda, cufkooda iyo quruxdooda dabiiciga ah. Geedka Jewett Giant ee ku yaalla dalka Canada. Geedkan waxa uu ku yaalaa jasiiradda Vancouver ee dalka Canada, waxaana la ogaaday sanadkii 1988. Wuxuu dhererkiisu yahay 182 feet halka ballaciisuna yahay 20 feet. Waxaana lagu qiyaasaa inuu leeyahay ilaa 16,000 cubic feet oo alwaax ah. Nasiib wanaag waxaa lagu ilaaliyaa gudaha beerta qaran ee Pacific Rim, sababtoo ah inta badan kaymaha qadiimiga ah ee Vancouver waa la jaray. Geedka 12aad Wisteria Tree oo ku yaalla dalka Japan. Wisteria waa geed aad u ubaxyo badan oo cajiib ah, wuxuuna aad ugu badan yahay qaaradda Aasiya. Waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan, wuxuuna ku yaalaa beerta Ashikaga Flower ee dalka Japan. Geedkan oo 144 jir ah waxa uu daboolayaa dhul weyn. Ubaxyadiisa basaliga ah ayaana iftiimiya marka ay qorraxdu soo baxdo, taasoo ka dhigta meel aad u soo jiidasho badan. Donna, Oregon, dalka Mareykanka. Geedka Donna dhererkiisu waxa uu gaaraa 327 feet, taasoo ka dhigaysa geed ka mid ah kuwa ugu dheer dunida. Waxaana laga helaa gobolka Oregon, waxaana la rumaysan yahay inay da'diisu gaarayso ilaa 500 oo sano. Laoga Christmas Tree. Tani waa geed ciidda Christmaska la sameeyo sanad kasta magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil. Waana geedka maalmaha ciidda ugu weyn ee sameynaya adduunka, wuxuuna dhererkiisu yahay 279 feet. Waxaa lagu qurxiyaa iftiin xidig 2.5 miisaankiisu yahay mid aad u culus. Muuqaalkiisuna waa mid mucjiso ah oo la yaab leh. Sangerion, dalka Australia. Geedkan waa kan ugu dheer dalka Australia, waxa uu gaarayaa 327 feet, waxaana lagu magacaabay Sangerion geedkii qarniga maadaama uu ahaa geedkii 100aad ee la diiwaan geliyo. Inkastoo uu gubtay sanadkii 2019, haddana wuu badbaaday. Geedka xiga waa Tane Mahuta, New Zealand. Tane Mahuta micnaheedu waa ilaaha kaymaha ee Maori, sida ay dadka reer New Zealand qaar ka mid ah u yaqaanaan. Geedka Kauri waa kan ugu weyn dalka New Zealand, dhererkiisu waa 169 feet. Dadka deegaanka ayaa u arka mid barakaysan, waxaana la nadiifiyaa kabaha iyo dharka ka hor inta aan la gaarin halka uu ku yaallo si aan cudur loogu gudbin xididadiisa. Servim, jasiiradda Tasmania. Waa geed ku yaalla Australia oo loo yaqaano Tasmanian Blue Gum. Dhererkiisu waxa uu gaaraa 298 feet, waxaana lagu naanaysaa hooyo iyo gabar. Magaca waxaa laga keenay luqadda Aborigine, waxaana lagu ilaaliyaa sharciyo adag si looga hortago in la jaro maadaama noocyadaas alwaaxoodu aad u qiimo badan yahay. Geedka xiga waa Futan Cypress. Geedkan waa astaanta qaranka ee dalka Futan oo ah dal dhaca qaaradda Aasiya, waxaana kori karaa in ka badan 300 oo feet dherer ahaan. Sidoo kale waxaa lagu beeray hareeraha macbadyada Buddhist, waxa uuna leeyahay qiimaha diineed iyo mid taariikhi ah. Geedka afraad waa Yellow Meranti, Malaysia. Geedkan lagu magacaabo Menari Tower waa geedka ugu dheer kaymaha kulaylaha, 330 feet ayuu dherer ahaan gaaraa, waxaana lagu arkay gudaha dooxada Danum Conservation Area oo ay ku nool yihiin xayawaano dhif ah sida orangatan iyo maroodiyaha kaynta. Rainbow Eucalyptus, Hawaii. Geedkan cajiibka ah ee leh jir adag oo midabo badan, cagaar, guduud, orange, blue. Midabadaas waxa ay ka dhashaan marka qoloftiisu go'do. Wuxuu kori karaa in ka badan 250 feet, waxaana si gaar ah loogu arkaa jasiiradda Hawaii ee dalka Mareykanka. Somoma Tree, Amazon Rainforest. Geedkan oo caan ku ah kaynta Amazon oo loo yaqaan Somoma Kabok, waxaa lagu yaqaanaa kaynta Amazon. Waa kan ugu dheer kaynta roobabka, dhererkiisuna waxa uu gaaraa 250 feet. Xididadiisu waxay kor u kacaan dusha si ay biyaha uga adkaystaan, waxaana lagu tixgeliyaa geedka inuu yahay mid muhiim ah deegaanka iyo dhaqanka Maya ee Koonfur Ameerika. Ugu dambeyn, Hyperion, gobolka California ee dalka Mareykanka. Geedka Hyperion waa kan ugu dheer dunida, waxaana loo yaqaanaa Giant Redwood, lagana helay gobolka California sanadii 2006. Dhererkiisu waxa uu gaaraa 379 feet, in ka badan 115 mitir. Goobtiisa dhabta ah waa la qariyay si aan dadku u dhaawicin, waxaana la rumaysan yahay inuu yahay 800 oo sano jir, balse waxaa baaris la sameeyay lagu ogaaday in shimbiraha deegaanka ay hakiyeen koritaankiisa, saameynna ku yeesheen. Ugu dambeyn, geedahan waa mucjisooyin dabiici ah oo muujinaya awoodda nolosha dhulka. Mid kasta waxa uu leeyahay sheeko u gaar ah, qaar diimeed, qaarna waa sheekooyin cilmiyeed, qaarna waa la yaab la xiriira dhererkooda. Marka aad eegto geedahan waaweyn, waxayna barayaan in dabeecaddu weli tahay awoodda ugu weyn ee dunida. Ilaali kaymaha iyo dhirta, sababtoo ah hal geed oo weyn ayaa qaadan kara inuu qaato 100 sano si uu u koro, balse hal daqiiqo ayaa ku filan in la jaro.
La soco qaybaha dambe ee taxanaha layaabyada dunida oo ku soo biir boggeena daawade.